aqoon-yahan waxgarad iyo sidoo kale oday dhaqameed ka soo jeeda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa bogaadiyay isla mar ahaantaana soo dhaweeyay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isla mar ahaantaana hore u ahaan jiray barasaabkii hore gobolka Gabiley iyagoo madaxweynaha ku bogaadinay magacaabistan sidoo kalena soo dhaweynayay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer isla mar ahaantaana sheegay inay la shaqeyn doonaan ayaa waxa kamid ah hadaladoodii sida tan waxweeye inaan ku soo dhaweyno Xamse Maxamed Cabdi magacaabista loo magacaabay gobolkan Burco inuu ka noqdo gudoomiye hambaliyo iyo hadii la ka dhigo waxaan u direynaa iyo hadii la ka dhigo soo dhaweyn si fiican ku soo dhaweynayna ku soo dhaweynmayno qolay waxaan ku soo dhaweynayna Burco Togdheer kala qolamaha xukunkooda iyo xaajadooda iyo xaaladkoodana waa u siman tahay saasaanu kugu aadisanaa hadaan reer Burco dhannahay waxaanu kugu dacaynaynaa xilka lagu magacaabay ee lagu egmaday inaad Burco Ilaahay kugu guuleeyo oo aad dadaalka ka dhigo magac iyo manfac iyo dadka oo aad midnimo iyo soo dhaweyn waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaad Ilaahay kugu sharfo aad ku guuleysato haddii aan nahay odayaasha Togdheer waxa weeyaan bogaadin hambaliyo iyo soo dhaweyn waxaanu hambaliyaynaynaa gudoomiyaha loo soo bedelay gobolka Togdheer oo ahaa markii hore gudoomiyaha gobolka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo bedelay aad iyo aad u mahadsan yahay waa soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa soo dhawo baan leenahay gobolkii aad markii hore qabatay ama fara badan baad ku lahayd kana Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshiisa Ilaahay waa ku fududeeyay kana Ilaahay waa ku fududeyn doonaa waxaan noqon doontaa insha Allah kii gobolka Gabiley waa lagu amaanaya kana lagu amaano isku soo dhaweeya gacmo furan baan ugu soo dhaweynaynaa gobolkii maalintii hore lagu geeyay ee Gabileybana war wacan baad laga keenay anigu ragii maalintaana ku taahnay Gabiley kula tagay baan kaana baawar baad ka soo qaadatay anaga iyo ragay ku galbinayba waxaan salaamayaa aadna ugu mahadnaqayaa mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dawladda hadday barasaaba tahay iyo hadday wasiir tahay iyo hadday agaasimayaal tahay ba qaybtayadii qorshe wanaagsan oo wado noo siinaya waanu ku hambalyeynaa madaxweyne dalka adunba madaxweyne ah beelaha walaalaha dareere weyniya ceelaf weyn isku dilaya ee ummadoo dhammi baaqa nabadgelyo u dirtay waxaanu leenahay waar ummadda maqla oo yaanin kaaridin ku dhicina habar lamaan oo isaqal dhaam ha noqonine kala samra madaxweyne tan waa xaweeye Burco waa father for in Somaliland waa halkay ka dhalatay Somaliland waa taadu soo halgantay waa taadu ma garanayso buuraha u gashay madaxweyne hiil iyo hoob waan kula ag taaganahay barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Burco waad mahadsan tahay waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku hambalyeynaa waxaanu ku rajaynahay inaad magac iyo mafacba ku soo kordhiso insha Allah waxaan soo dhaweynaynaa oo aanu laab furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee nala soo magacaabay Mudane Xamse Maxamed Cabdi oo gudoomiyihii Gabiley markii hore ahaa waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow qalbi furan iyo gacmo furan iyo laab furan ku soo dhaweynaynaa inta kadib waxaan u hambalyeynaa gudoomiyaha hore isaguna la bedelay waxaan leeyahay isaguna waa si sabateenaa si sharaf leh karaamo leh waxaan leenahay Xamse soo dhawow gacmo furan baan ku soo dhaweynaa insha Allah billahi kariim waan ka horiman doonaa markaad gobolka soo galayso si waxaan baan ugu soo dhaweyn doonaa waxaan ugu muujin doonaa kalgacaylka gobolka ku qabo dhamaantiin isagoo aan kala qaybsanayn odaygii hore gobolka Ramaax isagana halkan waxaan ugu jeedinayaa mahad celin baan ugu jeedinayaa oday waa yaaraga waxa muddo dheer gobolka soo shaqeynayay taariikh badan dalka ku leh isagana waan sabooteenaa waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.